war kalamaanay war ma haysaane laascaanood weli balaaya ka higle bannaanbaxyadiina weli way socdaan dad hubaysanna waa la sheegayaayo dariiqyada taagan ciidamadiina saldhigyadoodii bay dabada la galeen xabaddana waa finiijinayaan baa la yidhi puntland iyo somalilanna hanjabaado kulul bay isweydaarsadeen hadda caqligu inuu shaqeeyaa roone ilaahay ha dejiyo war puntland iyo somalilan xaaladda ay isku eedaynayaan ama shabaabka dhex faa'iidaysanaya war shacabka laasacaanood waxay leeyihiin ama puntland ha noo taliso ama somalilan ha noo talisay annagu nabad baan rabnaa wargooyin war ma haysaane arrinta laasacaanood caalami bay noqotay maraykankuna wuxuu yidhi xasaradda ha la dejiyo madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabkana waxay dhaheen duruufta shacabka ha la eego wixii dhibaato ahoo jirana wadahadal ha lagu dhammeeyo warqaska laasacaanood muddo dheer buu socday xalkama dambaysa ma loo heli waaye dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon war arrinta laasacaanood anigu waxaan qabaa indha feejigan in lagu fiiriyo dhinacyada is-eedaynayana ha ogaadaa inuu shabaab ka dhex faa'iidaysan karo war dadku waysan ogayne shabaab fawdaday ku barbaaraan war shabaab somalilanna ma eedayn puntlandna ma eedayna ma adigaa ku nabaaye aryadaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riday jireen ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riday jireen war anigu laascaanood dadka isku laynaya waxaan dhihi lahaa ehel wada dhashiyo dad walaala tihiina iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada war xildhibaan maarey wuxuu yidhi dilalka laascaanood waxaa ka dambeeya shisheeye haddana wuxuu ku eedeeyey puntland sababtoo ah inta la dilayo wuxuu yidhi waa taageerayaasha somalilan war hadda gobolka hiiraan adigu war ma ka haysaa war dowladda ingiriiskuba waa ka hadasha arrinta laascaanood xuduuddii somalilan in wax laga bedelaa ogolnaa ma dhahe ingiriisku somalilan is for UK miyay dhaheen mise no one knows ay dhaheen war talyaanigu ma yidhi bilfagowra durmiillo war carabtii yartay ma dhaheen cajabay cajiibay caway ayaanay war dad badan oo ayaanta carab sheeganaya inay carabtu la cajiibayso waan ogaa war hadda ka hor safiir kibligaad la dhihi jiro kenyaana wuxuu yidhi soomaalidu weligeed muraayad iskuma fiirin sababtoo ah waxay tahay bay ogaan lahayd hadday isku eegi lahayd berigaa warkiisa aad baan uga cadhooday laakiin waxaan ogaaday xaqiiqa inay tahay markay carab sheegteen war soomaalidu carabi afrikaan isku darsan inay yihiin waxaad ka garan kartaa siday gabdheen u cadcad yihiin allaha naga cafiye miyay u dhasheen mise way iska dhigeen war taliya xoogga dalka wuxuu yidhi ninkii dhoofku yimidba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi horjoogayaasha ajaaniibta iyo kuwa soomaalida al-shabaab waa isku dhegan yihiin weeraradii baana cidhiidhi geliyey waana laga adkaaday buu yidhi allow colkeenna colub bixi ahaa marka war wasiirkii koonfur galbeed iska casiriyey ilyaas oo lafta geereen ku dhega hadlaayay wuxuu yidhi hadday ii kala kacday diyaaradda hadday kacday am star wariya ma qurbiya uu ka yimid oo ku laabtay war ma tiktokar buu noqday war ma wacdigiiyo roob u bedelay war automatic update oo isu diray war kalamaanay war ma haysiine sheekh ismaaciil maxamed cigaal oo ahaay hogaamiyaha culummada tabliiq sacuudiga ku xijaabtaa la yidhi hadda allah u dhaxariistaa jashii dhammaata ifka joogi mayse war shiikh bidafaarax caalim meesha lagu dilo waa laascaanood allah u naxariistaa soo khudbadii ka soo baxaana la dilay hadda waxay ila tahay caalim bayd ilaahay ka soo baxay kii uu gacantiisa sababsadaa eedaya war qof cadaab raba maadaa ka celin kara ma fahmin war kalamaanay wax sheegiinaa nacaye shiikhii hogaaminaya culummada tabliiq sacuudiga uu ku dhintay war dhimasho sugaha sacuudiga bin salmaan arooskiisa warbaahinta lagama sheegin qodbasira miya war cristiano ronaldo sacuudiga u soo wareegsaday kooxda al-nasri ayuu heshiis u saxiixay war Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo ka hadlay ku adkeyntii maalmaha dambe kursiga kaydka loogu hayo Cristiano Ronaldo wuxuu yidhi garab istaaga Falastiin baa lagu faquuqayaa war ma haysiina gudoomiyihii hore degmada Wadajir Axmed Daaci oo ka hadlay hilowla gaab oo ku taala xuduudda galguduud iyo shabeellada dhexe wuxuu yidhi xaasaska shabaab ee jooga deegaanadii la xureeyay ee nimankoodii oo duurka jooga 24 saac telefoonka kula nuunuule islama joogi karna ha noo firaaqeeyeen ama duurka ha galaanoo nimankoodii ha aadaan ama xamar ha aadaan uu yidhi marka waa yaabaye xamar ma wixii xumoo dhan loo soo diraa malaha xabsi hal la geeyo ka waday war dad badan oo xamar inuu nabad ahaada aan rabin wixii xun xamar ha aadeen waa dhihi jireen laakiin anigu Axmed Daaci ka filamay war odiga madaha farta ugu dhacday oo ma screen touch buu ahaa war maysiina taariikhda markii ugu horeysay waxa dhacday in madaxweyne Soomaaliyeed uu yiraahdo shacabkaygiiyo dhibkan idin geysanay raalli ka ahaada madaxweyne Xasan Sheekhna wuxuu yiri saddexdii maalin ee wadooyinka xirnaayeen daruufaa nagu kaliftay cadawaad ogtihiina nala xiriira marti xurmo nagu lehna waa nala joogtay raalli ahaada shacabkaygiiyo waan
waan ogahay duruuftiinna marka maanta waxay maraysaa in dikreeto madaxweyne shacabkii lagu raaligeliyo war waxaan maqli jiray dhegow danteennii aniga dhantaalo ruxse dhaawac geysto dhayaya maliite ruux talaadu dhaftana dhaxaanu aragne war waxaad ka tagtay dheel ma joogteer dhab u fiirso dhab u fiirso weliga war hayla taraarixina ujeeddadaydu waxay ahayd ruux dhaawac geysto dhayayaa ma liito war kalmaanee wixiinu waa guulwadeene ummadda in 3 maalin tariiqada laga xiro maray qiil noqonaysa ma jirto madaxweynihii baana raaligelin bixiye bulshada kuma qanci karto sababtoo ah wixii dhici lahaa waa ku dhaceen war duruufta dalkeena ka jirtaa nagu kaliftayaa lagu yiriye adiguma dal kalaad joogtaa war toddobaadkii la soo dhaafay dadka ugu badan oo jeedka la xiray ka cabanayay waxay ahaayeen dad Maraykan iyo Yurub iyo Turkiga kala jooga war iyaga laftirkooda haddii jeedka laga xiro inay ka codaan maysan xaq u lahayn war ma safaray muqdisho ku iman lahaayeen baa laga joojiyey war jeedadka muqdisho la xiro waa qalad ay ku dhaheen waryaada waxaan maqli jiray nin lagu seexdo ha seexan hadda ka horna hadraa wuxuu yidhi habkii xidin xiidka dugaag huwantiisa heshiis lagu duulay horseed ka ahaaye markii aanka kaabka la soo helay guusha tukaha yidhi hoo war hashaan qale saami hagaagna u qaybi hadhowna itoosi tukow hayadaadu waxbay huwanaydee halkay tala joogtay ka sii waday hawsha sakhdii dhexe howda ninkii hurda toosi hankaag jaljalleeca hanqaar warwareegga dugiyahan fariirka waldayskula haadi gar laysu hankaabsay wuxuu yidhi hoo war haddeer iyo saakay haddee weligayba inaanan hambaynin horaad u ogeyday maxaad igu hiif ninkayse ka hoostay mar bay hawireene dugaag huwantiisa hilbaha cunistooda habeen gama'iisa ayuu hanfogaanta halkii kaga dhaartay marka xiitaxiito maalintaa kadib ma aysan seexan habeen iyo maalin walowse daldalaaynoanamayba ka goraday lankiseehadiyasaaisdubidhalaasa war horaa loo yidhi nin seexday nin soo jeedaa sira aryaadaha horaa waxaa loo yidhi mug waa aran mug waa ayax mug waa kaa adkiya gaalo mugna waa abuur iyo falliingeeda lagu oomo mugna waa abaar caratayoo owrta naga laysa mugna waa anaa odayahoo kuu arrimihaaya ay dhalaan ahay haddaan iridba kaa oodana waa lagu dhammeeye warnimayow in cabdulaahi nashli yidhaa wuxuu yidhi haddii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaalka ma dhicin haddana lama arkin laba dawladood oo heshiis ah sababtoo ah xalash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobe ayay miiska jag igu siisay calaymasaarkii taraam ayay sanka ii taagtay shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhiga warrantay iyo kuwo kale ayay isdhihi lahaayeen war waxaad sheegaysa maaqaana naga tag dayaxaa la aadaan ku idhi anuguy haddii dayixii la tegey haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayanno maan dadaalno oon ku dayanno dacdeennii naga tagtee waryaa maxaan ku dayanna adinkaa iska daba wareegaye waryaa xishooda oo shaqay qawiila kuwaarta qaarkiin waa gaari waaseen waryaa araa waa ku dayana gamuuna cirka u gamayna